السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سود هذا halkan waxaan weeye casharkan maanta waa casharka koowaad ee modulka sideedaad koorsadana vocabulary-ga casharkan si guud waxaan uga hadli doonaa qodobadan soo socda waxaa ka mid ah waxaan qeexi doonaa maxaa la yidhahdaa word choice ayaan qeexi doonaa sidoo kale waxaan qeexi doonaa connotation maxaa la yidhahdaa waxaan qeexi doonaa denotation maxaa la yidhahdaa iyo nouns maxaa la yidhahdaa okay sidoo kale waxaan kala saari doonaa positive iyo negative connotations maxay ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaan iyadana maaragtay sharaxaad ka bixin doonaa casharkanba ujeedooyinkiisa waaweyn ka mid ah inaad kala fahantid warka qaabkaa rabtid inaad u dhahdid iyo ujeedkaad ka leedahay waxaa laga yaabaa warka aad rabtid inaad sheegtid tusaale qof baa rabtaa inaad warka gudbisid qofkaas war negative ah iyo war positive ah hal ficil isagoo sameeyaa waxay ka gudbin kartaa war negative ah ama war positive ah arrintaasi siday noqonayso baan iyadana ka hadli doonaa ugu horreyn aan qeexno maxaa la yidhaahdaa word choice waxaa la yidhaahdaa the deliberate selection of words to communicate precise meaning tone and emotion waxaa la yidhaahdaa si ula kaca inaad u dooratid erayada aad rabtid inaad ku hadashid macne saxa qaab saxana u tiraahdid dareen ahaana saxa taas ayaa waxaa la yidhaahdaa word choice macnaha eraya waa warkaa rabtid inaad tiraahdid inaad warka doorato aadan isku oran sababtoo haddaa iska tiraahdid waxaa laga yaabaa macnihii aad ula jeeday ma ahee macno kale inuu gudbiyo oo laga fahmo okay good word choice balances haddii erayada si saxa aad u dooratid waxay kaa caawin doontaa ama waxay isu dheelitiraysaa meaning macnaha ereyga specificity gaar ahaanshaha ereygaas audience dadka markaa dhegaysanaya iyo style qaabka loo oranayo macnaheedu waxay tahay intaasu si isu dheelitiran ayaad u oranaysa intaasu si isu dheelitiran intaas ayuu isu dheelitirayaa hadalkaagu haddii aad si sax u tiraahdid if and when two words share a definition haddii laba erey oo isku mid ah ay wadaagaan definition the choice between them changes the impression qaabka loo kala doorto ayaa wuxuu bedeli doonaa dareenka okay labadan erey markaan u nimaadno halka waxaan kaga nimi word choice labadan erey denotation iyo connotation baan u meenana denotationku waa macne fixed ah waa macne meel taagan connotationkuna waa macne isbedbedelaya kuna dhisan xaaladda markaas la joogo marka waa inaad fahamtid labadan erey inuu midna yahay fixed oo macnihiisu taagan yahay si guud midna macnihiisu isbedbedelo halkan ayaan kusii sharaxaynaa misna tablekan labadii halkan waxaan ku haysanaa labadii erey waa denotation iyo connotation halkan waxaan ku haysanaa macnihii ereyga halkan waxaan ku haysanaa tusaale inaan soo qaadano tusaale hadda connotation waxaa la yidhahdaa literal or dictionary meaning waa macnaha ereyga qaamuuska ugu yaal si guud luqad walba waxay leedahay qaamuus ereyga laga raadiyo ama dictionary denotation waa macnaha ku yaala qaamuuska ama macnaha ereyga inta badan horey laga fahmayo oo muuqda tusaale markaad immediately ereygaas lagu sheego macnaha waxa weeye uu yeelanayo oo muuqda tusaale hadda snake waxa weeye af soomaaliga sida caadiga ah waa mas waa nooc ka mid ah xamaaratada bahalaha loo yaqaan xamaaratada familigaas ayuu ka mid yahay waa macnihiisa caadiga oo dictionary-ga ugu qoran okay aanu nimaadno connotation maxaa la yidhahdaa connotation waxaa la yidhahdaa waa emotional waa macnaha dareen ahaan ama dhaqan ahaan ereygu uu maaragtay sido okay hadda isla ereygii muxuu ahaa snake baan tusaale usoo qaadanay mar kale snake waxaan nidhi sida caadiga ah waa ereyga waa nooc ka mid ah xamaaratada markuu yahay denotationka connotationka marka la joogo
tusaale hadda waxaan ereygaanu noqon karaa haddii lagu yidhaahdo mas weeye qofkaasi macnaheedu waxay tahay waa negative qofkaasi maska dabeecadihiisi uu leeyahay masku tusaale waxaa lagu yaqaanaa dee inuu maxaa la yidhahdaa qofku qaniino uu sumeeyo maxaa la yidhahdaa haddana qaninyada uu qaniinayo qaniyo bila-a ma aha waa wax yar isla markaasna waa sun oo dee qofkii way fududahay inuu suntaasi ay dishoba meesha ka saarto hadda ereygan traitor ama deceiver waa khaa'in weeye macnaheedu waxay tahay masku waa khaa'in sababtoo ah isaga bahalkaa gelinkaa arkaysid oo xuurka ah oo maaragtay bahal weyn ma aha waa bahal gebin oo dhulkaa marmaro oo sometimes ay adag tahay in la arko qofkan maaragtay ilaahay maaragtay meel dheer ka tuso maahe qofka maaragtay si fudud ayuu wax u gaarsiiyaa haddana waxa uu gaarsiinayo ayaa waxay keeni kartaa qofkaasi inuu maaragtay u geeriyoodo ya marka waxa weeye that's xiriirka laga dhexaysiinayo marka connotation hadda snake haddii lagu yiri connotation side haddii laga fiiriyo wuxuu noqon karaa macnahaas ayuu xambaarsan yahay denotation side haddii laga fiiriyona waa bahalkaas xamaaratada ka mid ah halka aan uga nimaadno marka definitionada waxaan gudagelaynaa casharkan maaragtay ciwaankiisa guud ahaa positive and negative connotations positive iyo negative macnaha waxa weeye waa hadalkii oo marna waxaa laga fiirinaya dhanka negative connotationka uu xambaarsanaan karo iyo positiveka okay positiveka marka evokes pleasant or desirable feelings macnaha la rabo ayuu sheegayaa ama macnaha raaliga laga yahay tusaale hadda slim waa qof dhuuban dhuubnaantu ceeb maaha cayna maaha qofku inuu dhuuban yahay ceebna maaha cayna maaha ya youthful dhalinyaro wax iska caadiya positive ya determined qof wax loo sheegi karo ama qof wax laga dhaadhicin karo waa positive tusaale qofta haddii aan waxaa jira dad aan maaragtay waxba la fahamsiin karin qofka haddii wax laga dhaadhicin karo waa positive side sababtoo ah khaladkiisa loo sheegi karaa waxbaa la fahamsiin karaa marka erayadan hadda waa positive isla erayadan oo macno kale leh ayaan arki doonaa negative connotationka wuxuu macnahani sheegayaa macne aan loo baahnayn unfavorable ama macno aan la jeclaysanayn oo tusaale qofka marka la liidayo ama negative laga sheegayo lagu yiraahdo skinny waxa weeye naga hadda af Soomaaliga waxaan rahnaa qori waxa la leeyahay qori qalalan waa macne muujinaya qofkaas inuu caati yahay oo dhuuban yahay haddana negative weeye qori qalalan camal oo kale annagu waxay tahay waa la fihii bas lafaha waxba maaragtay kama sugaya waa ay marka childish ciyaalnimo qofkaas uu igu ciyaaloobay waa negative isla macnihii yaraantii baan sheegaynaa laakiin yaraantii markan waxaa loo isticmaalayaa negative stubborn waxaa la yidhahdaa qofkan waxba laga dhaadhicin karin tusaale qofkaas meel buu ku dhegan yahay haddii ilaa maanta wax loo sheegayo oo huud iyo ancaam lagu akhriyo meeshaa kama dhaqaaqayo marka qofka haddaan waxba loo sheegi karin waa negative side ya marka positive iyo negative tusaalayaashaasaan soo qaadanay labadoodaba waxay sheegayaan similar facts xaqiiqooyin isku mid ah laakiin ereyga qaabka loo oranayo ayaa kala duwan ya qaabka loo oranayo ereyga ayaa kala duwan tusaalayaal dheer ayaan soo qaadanaynaa marka tusaale hadda halkan waxaan ku haysanaa natural meaning waa macnaha dabiici ahaan ereygaas uu yeelanayo macnihiibaan marna waxaan la aadi doonaa dhinaca positive marna waxaan la aadi doonaa dhinaca negative interested in details tusaale hadda markaad rabtid details dheeriya inaad ku jirtid ereyga meticulous waa fiiro gaar ah waa positive picky laakiin haddii la yiraahdo ereygaas macnaheedu waxa weeye waa xulasho macnaheedu waxay tahay waxaas waa wax la xushay marka haddii la yiraahdo wax badan waa qolada rabtay warkaa inay faafiso ayaa si gaar ah soo xulatay waa negative marka sababtoo ah waxa laga yaabaa xaqiiqadii inay inta ka tageen
ama intii iyaga maaragtay xoogaa maaragtay ku ahayd negative ama shaqadooda wax ka sheegaysa intay ka tagaan inay soo xushaan inay iyaga rabaan bis oo intaas ay faafiyaan waana hadda inta badan waxyaabaha ay isticmaalaan hadda waa biki markaa u fiirisay hadda warbaahinta dowladda oo kale waxaa laga saaraa inta maaragtay dowladda shaqadeeda oo kale wax maaragtay ama in lala xisaabtamo keeni karta oo dhan baa laga saaraya waxaa lasoo reebayaa in yaroo qurux badan bis baa la faafinaya that's biki waa negative confident waxa weeye waa kalsooni tusaale hadda kalsooni hadda haddii la yidhahdo self assured qofkaas uu isku kalsoon yahay arrogantii waxa weeyaan qof kibir badan qofkaas hadduu kibir badan yahay waa negative sababtoo ah kibirka waa dembi waxa weeye waa dembi ka mid ah dunuubta waaweyn oo ilaahi subxaanahu watacaala laga galo marka waa negative haddii la yidhahdo qofkaas waa kibir badan yahay waa negative talkative ereygan talkative hadda sociable haddii la yidhaahdo waxaa loo oran karaa qofkaas waa qof bulshaawi ah positive weeye sababtoo ah dad badan uu dhexgeli karaa dad badan uu maaragtay la macaamili karaa dad badan okay social waa positive way baa loo sheegay qofka haddii la yidhahdo qofkaasi chatty waa qof sheeko badan dee sheekadu waa inta badan waxay noqon kartaa waxaan loo baahnayn qof iska daldalmaya oo maaragtay war aan xataa cidina weydiin iyo war aan loo dirsan iyo dadkii xataa inay maaragtay janis ee arrimahoodii waxay rabeen ay kaga wada hadlaan aan ka mashquulinayo oo kale marka waa chatty waa negative fine in opinion qofkaasi wuxuu ku dhegan yahay aragtidiisa assertive waa qof aragtidiisu caddahay oo la yaqaan bushi laakiin waa qof wax loo soo sheegay macnaha qofkaas waa lasoo dirsaday oo halkay ku oran jireen soomaalidu waa lasoo dirsaday ama waa lasoo diray macnaheedu waxay tahay waa qof hor loo soo dhiibay marka waa negative marka si guud ereygan inagoo macnihi naturalka ha joogna baad qofkii waxaad marna la aadi kartaa dhinaca negative ah dhinaca positive ah marna ka sheegi kartaa tusaale hadda haddaan idhaahdo qofkaasi waa assertive waa qof aragti cad waa loo baahan yahay sababta waxaa la rabaa qofkaasi inuu leeyahay mowqif la yaqaan oo aan maaragtay meel ah fixed ah yah oo tusaalaan arrimaha markay timaado valueska iyo arrimaha la xiriira maaragtay qiyamka oo kale uu aragti cad ka leeyahay oo aan la bedeli karin laakiin qofkan haddii bushi la yidhaahdo oo qof macnaha values iyo xuma leh waa wixii markaa ciddii maaragtay waxgelisa bis waaye marka saas weeyaan macnayaashaas marka negativena waxa weeye way noqon karaan oo erey isagoo isku wax la sheegayo baa marna negative laga sheegi karaa marna positive loo sheegi karaa mawduucaas halka sababtaan soo gelina waa joyce waxa weeye tusaale hadda qof baa rabtaa inaad warbixin ka gudbisid warbixintaadu waa inay noqoto iyo ereyada aad dooranaysid waa inay noqdaan ereyo ku qotoma xaqiiqada oo tusaale ahaan qofkaasi aadan ka gudbin negative ya haddii maaragtay dee okay yahay oo kale haddii aad tusaale hadda qofka dhahdid waa assertive macnaheedu waxay tahay positive baa ka gudbisa laakiin haddaad busha ku sheegtid macnaheedu waxay tahay negative baa ka gudbisa marka markasta waa inaad fiirsatid ujeedka aad ereygan ka leedahay iyo audience-iguna qaabkay u fahmi doonaan xataa waxay fahmi doonaan macnaha ku jira meesha marka adoo tusaalaan qofka rabay inaad sheegtid positivekiisa haddaad tidhahdid jati ka hor oo negativekiisa aad sheegto okay marka taasna waa choice la xiriirtaa okay connotationku sidee buu u saameeyaa toonku waa qaabka ereyga loo oranayo ama cod ahaan qaabka loo oranayo waa emotional flavor of writing waa waxa laga dhadhansanayo qoraalka changing one word can shift the tone from encouraging critical okay tusaalayaashaanaan soo qaadanaynaa marka tusaalahan hadda she stood her ground barteedii bay joogtaa ya halkeedii qoftaas macnaha arrintaas marka lasoo bandhigay waxay joogtaa meesheedii ya ismaysan bedelin she refused to listen waxay diiday inayna dhegaysato tusaale qof baa waxaa la yidhi qofkaas arrintaas maaragtay haloo soo bandhigo
ama go'aanka noocaasa qofkaasi aragtidiisa ha ka dhig qofkiiba marka waxa laga sheegi karaa positive marka waxa laga sheegi karaa negative haddii la yidhahdo she stood her ground qofkaasi arrintaas waxa weeye waxay marka hore maaragtay ka aaminsaneyd unbay ku ekaatay waa positive sababtoo qofka cid aragti ku khasbi karta ma jirto aragtiya caadiga ah laakiin haddii la yidhahdo waxayba diiday inayna dhegeysato yaa waa negative sababtoo ah waxa weeye adigaad go'aankaaga le inaad diiddo iyo inaad aqbasho laakiin dhegeysigu inaad qofkii dhegeysatoba inaad ka diiddo waa khalad waa negative okay always match tone to purpose inta badan ujeedka aad ka leedahay toonka ereyga qaabkaad u oranaysid iyo ereyga aad dooranaysid waa inaad ka leedahay ujeedo haddaad rabtid positive inaad gudbiso positive gudbi haddaad rabtid inaad qofkaa ka gudbisid oo negative maxaa la yidhahdaa xaqiiqiyan uu negative arrintiisu ahayd negative ka gudbi laakiin you have to be specific sidoo kale purpose waa inaad u fiirisid academic waa inaad ahaatid persuasive waa inaad ku qancisid ya qofka naftarkiisa wax laga gudbinayo isaga naftarkiisu waa inaad arrintaa hadhowdii ku qancin kartid oo aad waxaa uu yahay wax meel ku xiran oo meel la yaqaan haysta ee wax la iskala yimi uusan ahayn friendly si saaxiibtinimo leh intaasoo dhan waa inaad maaragtay ereygaaga iyo waxa gudbinaysid aad u fiirisid okay marka connotation muxuu muhiim u yahay why it matters shapes how the audience feels about the topic wuxuu qaabaynayaa dadka ereygan iyo waxaan aad gudbinayso iyo warbixinta aad gudbinayso dhegeysan doona dareenkooda qaabkeebay u arkayaan qaabkeebay u arkayaan ayuu qaabaynayaa marka waa muhiim that's why it is important war isku mid ah war fiican ayaa negative laga dhigi karaa war negative ayaa positive laga dhigi karaa waxayna ku xirantahay sida loo oranayo marka that's why it matters influences credibility and emotional appeal okay misused connotation can create misunderstanding or unintended bias okay haddaad si khaldan u isticmaashid waxay keeni kartaa isfahmi waa iyo isfaham darro sababtoo adoo reeb positive inaad gudbiso haddaa negative gudbisto waxay keeni doontaa hadhowdii isfahmi waa inaa qofkii wixii isku fahmi weydaan adiga waxa rabtaa waxaad ula jeeday positive qofkiina waxa gaaray negative sidoo kale wuxuu keeni karaa unintended bias waxa weeye tusaalaan jihadii laga rabay warku inuusan aadin waana wax very common hadda waxyaabaha arrimo waaweyn oo maaragtay jira waxay ka dhasheen isfahmi waa war baa sidii la rabay aan loo sheegin ama war baa si khaldan loo fahmay waana arrin khatara runtii waliba marka la joogo arrimaha bulshada iyo dadka dadweynaha waxa loo sheegayo waa arrin muhiim ah dadweynaha haddii wax khaldan loo sheego waxa suurtagal ah inuu marin habaabiyo hadhowdii ay keento maaragtay marin habaabintaasi ay keento isku dhac ay keento marka waa arrin very important ah marka la joogo communicationka qaabka ereyga loo oranayo iyo warka qaabka loo sheegayo waa muhiim okay cultural and contextual connotations words carry different associations across cultures and time period erayadu waxay sidaan macno kala duwan dhaqan ahaan marka loo fiiriyo iyo waqtiga ay joogaan intaba waaqiciga marka la joogo tusaale freedom may cannot independence in one culture okay waxa laga yaabaa ereyga xornimo inuu dhaqan uu ugala muuqdo maxaa la yidhaahdaa si positive ah tusaale haddaad tirahdid dadkaasi xorriyadooday u dagaalamayaan dhinacaadoo jooga dhinacaas waxaa laga yaabaa dhinaca marka aad leedahay xorriyadooday u dagaalamayaan inuu positive yahay rebellion in another laakiin uu jabhadeyn ka yahay dhinaca kale tusaale dowlad baa hadda halkan joogto for example dowladdan waxa weeye waxaa jira qolo kasoo horjeeda oo jabhad ah qolada jabhadda haddaa u tagtid oo tiraahdid ama aad warbaahintaada ku shaacisid publish kale sidaa tiraahdid
waxay u dagaalamayaan xorriyadooda ogow waxa weeye dowladda dhinaceeda waxa weeye hadhowdii waxay ka yihiin jabhad bay ka yihiin marka wuxuu dhaqan ahaan labadaas side marka loo fiiriyo dhinacna wuxuu xornimuu ka yahay oo waa oran kartaa waa okay positive waa go ahead green light baa lagu siinaya dhinacna red light baa lagu siinayaayo jabhad baa waxaa ku sheegtay xornimo u dirir marka that's why it matters writers must remain aware of reader's perspective dadka qoraayaasha ah waa inay maaragtay ogaadaan wacyiga dadka akhrisan doona qoraalkooda iyo meesha ay joogaan okay practice exercise choose the better word for formal application su'aalahan hadda waxbaa xiriirsanaysaa erayadaan keebaa isticmaali lahayd I am bushy in achieving goals waxaan ahay qof la soo diro markaan gaarayo ahdaafteeda ama ahdaafteeda waa la ii sheegaa simply ahdaafteeda waa la igu dhiirigeliyaa waa la igu riixaa iyo waxa weeye waxaan ahay qof maaragtay ahdaaftiisa isagu yaqaan oo ay u jaango-an yihiin ya waa ahdaaftiisa ku gaara si cad u gaara I remain frugal with resources khayraadka marka la joogo waxaan ahay qof maaragtay ku dhegan ya ama qof maxaa la yidhahdaa si mas-uuliyad loo isticmaalayo tusaalahaan waxbaa lagu dhiibaya mas-uuliyad markaa waxaan shaqaa tegaysa waxaa lagu dhiibi doonaa resources it can be human resource or material resource labadaa kay noqotoba haddaad tahay qof si careful ah maaragta waxaan ahay qof si careful ah u maamulaya iyo waxaan ahay qof gacan furan tusaale khayraadkii laga dhiibay ama wixii mas-uuliyaddii laga dhiibay ama hantidii laga dhiibay waxaan ahay qof maaragta flexible ah bixin kara maxaa la yidhahdaa waa macnaha jiib ay leeyihiin wax macna saa usi weyn aanay la lahayn marka labadaas kee ku qoran lahayd labadaa erey kee isticmaali lahayd you have to decide midna waa positive midna waa negative all of them dadkayga markaan la joogo waxaan ahay qof su'aalo badan ama qof weydiin badan dadkayga marka la joogo waxaan ahay qof khaylo badan labadaas erey keebaad dooran lahayd okay nuncy and subtle meaning okay nuncy ama nuncy waa macno ahaan farqiga u dhexeeya weeyaan ama toonka ereyga qaabka loo oranayo okay recognize or nuncy helps avoid over or understatement tusaale hadda ereyadana soo qaadanaynaa upset angry furious ereyadaani mid kastoo ka mid ah wuxuu muujinayaa heerka qofka uu joogo dareen ahaan upset waxaa la yidhahdaa qofku markuu xanaaqsan yahay hebel wuu xanaaqsan yahay angryna waa markuu caraysan yahay furiousna waa caro xad dhaaf ah tusaale hadda la yidhaahdo qofkii hebel ahaa waa u tegaya waa xanaaqsanaa macnaheedu waxay tahay qofkaasi weli maxaa la yidhaahdaa xaaladiisu ma foga ya wuu xanaaqsanaa keliya xanaaqaas inuu maaragtay cabaar kadib saas kasoo noqon kara sababtoo xanaaqu waa jawaab qof waxaa jira xaaladu cabaar u xanaaqsanaanaya caadi kusoo noqonaya wuu caraysnaa laakiin maxay tahay waa very strong waxa weeye qofkaas wuu caraysnaa macnaha waxay tahay xaaladiisu caradu waxa weeye ficil la sameeyey oo already dhacay ayuu maaragtay ka caraysan yahay ya oo caradu waxa weeyaan dee waa qofkii heer wuxuu joogaa u fal celiyo ya oo maxaa la yidhahdaa wax geysan karo oo kale marka furiousna iyadoo wax kasii xag jirtaaba oo qofkii cara xad dhaafa weeye oo maaragtay meel la qaboojin karo xataa ma joogo marka ereyadaani macnaha waxay ku muujinayaan marxaladaha ereyga qofka qaabka maaragtay warkiisa ama dareenku markaa qofku aad ku aragtay qaabkaad u sheegayso waxaa la mid ah ereyadan oo cagsigooda waxaa ka mid ah pleased happy delighted waa farxad laakiin farxad waxa weeye sii kala badbadan oo midba uu joogo marxalad erayadan marka huma connotative pairs kan soo qaadanayno innovative tusaale ahaan ereygan waxa weeye wax cusub in lasoo kordhiyo strange laakiin waa qariib waa wax la yaab leh waa negative
wax cusub hadda haddii la yidhahdo waa positive laakiin haddii la yidhahdo waxaas wax qariib waa la qariibsadaa macnaheedu waxay tahay waa wax adag oo maaragtay adag tahay in tusaale hadda ereygan dedicated waa heegan obsessedna waa heegan laakiin isaga naftarkiisu waxa weeye waa negative waa in loo sameeyo qaab waali ah oo kale intii la rabay ama xadkii la rabay si ka baxsan ereyga hadda thrifty waa waxa labadan erey waxa loo isticmaalaa wax bixinta marka laga hadlayo tusaale qofkan wuxuu yahay ama qofkaasi waa gacan adag yahay waa cagsiga waa gacan adag yahay ereyganina waa maxaa la yiraahdaa waa bakhayl haddii qofka bakhayl lagu sheego waa cayb waa negative haddii lagu sheego laakiin waa gacan adag yahay xoogaa somehow waxay muujinaysaa inuu positive yahay qaab positive loo sheego confident waa isku kalsoon considerna waa kibir badan traditional waa qaabkii hore ama dhaqan ahaan old fashioned haddii la yiraahdo laakiin waa fashionkii hore waa negative waa loo sheegay okay marka summary waxa weeye connotationku wuxuu inta badan muujinayaa dareenka la rabo markaas qofka maaragtay ama xaaladda markaas la dareemayo oo dareen ahaan la rabo in la gudbiyo ama loo sheego denotationkuna waa definitionka ka muuqda ereyga words sidoo kale ereyada inta badan waxay shades of meaning waxay leeyihiin hoosiis macne ah oo isbedela saameynna ku leh impactiga ka dhalanaya marka negative iyo positive connotationku qofku waa inuu ku wacyi gashanaado waxayna maaragtay inta badan dhisaanin precision saxnimo iyo professional expression ereygaagu inaad maaragtay qaabkaad rabtay ujeedkaagu ha inaad gudbiso casharkan intaasaan kusoo koobaynaa aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum